وكا مسلاي انت ما سو فديسلeeninbo sababtoo ay tahay wax ima tusinaanay ninka ragga markuu wax ku tuso laga aamusa laakiin ninka ragga doon wax ku tusin adi camal tahay naasiyayga kugu yaalo biskeyga bis ka maqan gu sirna iska goynayo wallahi inaan ka bixin oo billahi oo tallaay inaan ka bixinin ninka ragga markaa wax ku aragtid allah ninkan waarag laakiin aniga السلام عليكم صوماليا سودو هذا ملك استدوية كجوكتان بالحقيقة وحانها أمد دن والبو كباب هذا مدكالة بين آدم كوحو بين آدم كامل يهي مركو أوليه وحالا ده تربية وشيء آد قالوه عدان وحاوه مركا فيرسيد قفك آنا هيسن فركسامبل لو عشان يرادا وجيدين ماشي وحلا soo fariisatay kaamira soo qaadatay live furata umaday soo hor fariisatay qaf islaameed ee cirdigiisa iyo sharafkiisa ku xadgudbay war hadii lagu xumeeyo oo lagu dhax kuma rabi maxaa jirkiisa ka galay maxaa tilmaamtiisa ka galay maxaa ceebtiisa ka galay waxyaabo total ka xiranaa jirto xad lama dhaafaan hadaa fahmi weysid habriyar macaan ama aad dhibsatay ewel barun ina isku qabteen wallahu a'lam wixiina يعني كبدبدس iyo waxay ahayd too much dadka yani ina attention ka raadinaysan waa idin jeeday okay habar macaan hadaaba dhibsataba ama qalad oo ka galaba tartiibtaada ma ka siibatid hadoo umad ina la hadshirabtid tiraahdo waxaan iyo waxaan ila imaada ima qabato yaa ku dhaha waxyaabaha nooga sheekay khas caleek habar yar u faatahay hooyada kuma tarbiyeenin aabaha waqti kuma gelinin bay'adaadi dadka ku dhaxnoosha kuma tarbiyeenin sidaan u hadlaysid waa sida xaafada ku soo korto looga hadli jiray waa si wixii aala degneed ay u hadli jireen exactly ayaga ka turjumoosa iga raali ahaada hadaa inay cayno ma rabin laakiin gabadhiin way idinka turjumoosa hadii cunugtan agteeda erayada qaar lagu dhihi lahayn ama markii eray qaldan tiraahdo la dhihi lahaa maxaa sheegtay oo laga nixin lahaa ee wax weyn looga dhigi lahaa bil xaqiiqa maanta waxaan si caadi iyadoo yani caadi nervous iska dhigayso swaalas inta camera furato waxaan oo kale si caadi ugu mee hadasheen wallahi billahi ugu yaraan maaski xirlay wajiga qarsalad markii erayada qaar fooshuxna isticmaalayso laakiin dadkeena wax iska yihiin caadi cunug yaraa wuxuu ku dhahaa aabaha saayeen hooyada xagga saankeeyay adeerka saayeen and it's okay dadkii waaweynaya saas ilmaha hortooda isku dhahay ilmihii way koobiyeenay way dhahayaan ilmaheena qurbaha joogo wallahi gaalad nala tarbiyeyso oo iskoolada macallimiin oga oo u dhigaano cunug qurba ka imaaday oo ku dhahay saan hooyada yeel ama aabaha saan yeel ha erayo xun isticmaalaan si qarsoodi isticmaalaan xataa markay qorayaan haash iyo dhibic iyo waxbay ku dhax qariyaan eraygaas si clear oo cad oo lama hor istaagi karaan dadka bal fiiri waa ilmo dad gaale la nool gaalada waa balaaye gaalada waa dad xun war dadkiina muslimka magaca ka laakiin muslimnimada ku dhaqmeynaa ka daran wallahi waxaan oo kaleente waa very disgusting akhas wax lagu sheegay lama yaqaan ad gabdhaan wallahi waxaan oo kale inaa soo qaato ama dadka horkeena ma jecleen laakiin markaa fikiray waxaa is dhahay Soomaalida dhan walba ay ka baaba'een yani dagaalka dalka burburo ima mentality xataa akhlaaqiyan tarabiyan nafsiyan wax